Israel oo la dhibaatoonaysa sidii ay kaga adkaan lahayd xoogagga Xamaas ayay ciidamadeeda dib ugu laabteen deegaanka Jabaliya ee waqooyiga marinka Gaza kadib markii taliska militariga Israel uu Sabtidii sheegay in xoogagga Xamaas ay dib ugu soo xoogeysteen deegaanadaasi. Taliska ayaa dadka rayidka ah ugu baaqay inay isaga guuraan Jabaliya iyo nawaaxigeeda isla markaana ay tagaan galbeedka magaalada Gaza si loo yareeyo bay yiraahdeen waxyeelada dadka rayidka ah lagana fogeeyo goobaha dagaalka. Ciidamada Israel ayaa duqeyn culus ka bilaabay Jabaliya ee deegaanada ku xeeran iyadoo afhayeenka militariga Israel Daniel Harge uu xalay sheegay in la burburinayo saldhigyada ay Xamaas ku leeyihiin waqooyiga Gaza. Ilaa 19 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen duqeymaha ay ciidamada Israel ka geysteen waqooyiga bartamaha marinka Gaza. Wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo WAFA ayaa sheegtay in 10 ka mid ah dadkaas lagu dilay weerar xagga cirka ah oo ka dhacay xaafadda Sabra ee magaalada Gaza. Dhammaan dadka la dilay ayaa ahaa dad shacab ah sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee WAFA. Hay'adda difaaca madaniga ee marinka Gaza ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegayso in xoojinta weerarada ay ciidamada Israel ku hayaan dhismayaasha waqooyiga Gaza ay ka dhigtay mid ku adag kooxaha samata bixinta inay gutaan waajibaadkooda. Daniel Harge, afhayeenka militariga Israel oo warbaahinta ka soo muuqday, ayaa iska indhatiray waxyeelada ay ciidamadooda u geysanayaan dadka rayidka, waxaana uu sheegay inay ku fogan yihiin kaliya ciribtirka Xamaas. Xamaas waxay dib u habaysay awooddeeda ciidan ee waqooyiga marinka Gaza dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, annagana waxaa naga go'an sidii aan uga takhalusi lahayn, ayuu yiri Daniel Harge. Dhanka kale, taliyaha ciidamada Israel General Hersi ayaa xafiiska ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ku wargeliyay in ciidamadu ay dib ugu laabteen Jabaliya isla markaana ay ka bilaabeen howlgalka lagula dagaalamaya Xamaas. Ciidamada Israel ayaa hadda dib ugu laabtay Jabaliya iyadoo wejigii hore ee dagaalka ka dhacay halkaasi ay Xamaas kala kulmeen jab xoogan isla markaana ay dagaaladaasi ku waayeen saraakiil iyo askar badana. Ciidamada Israel ayaa la xasuustaa in bilihii November iyo December ay dad fara badan oo rayid ah ku laayeen deegaankaasi iyagoo xitaa dhowr jeer garaacay xerada weyn ee qaxootiga ee Jabaliya. Israel ayaa waxaa muuqatay in 7 bilood ee dagaalku uu socday marinka Gaza ay ku fashilantay inay xaqiijiso 3 hadaf ee ugu duushay dhulka go'doonsan ee kala ah burburinta ururka Xamaas, dib u soo celinta Israa'iiliyiinta lagu qafaasho weerarkii 7 Oktoobar, iyo xaqiijinta inaanay Gaza khatar amni ku haynin Israel. Israel ayaa la sheegayaa inay ku jahawareersan tahay qaabka ay ku wajahayso dagaalka Xamaas marka aad eegto inaysan istiraatiijiyad dhab ah ka lahayn, taasoo aad ka garan karto in marba meel ay isku qaadayso oo ay ku duulayso.